waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal soo dhawaada halkan naga daawanaysaan waa janalkeyna cusub ee ku saabsan barashada islaamka iyo arrimaha diinta islaamka iyo hadafka islaamka ka sheekeeya. aad iyo aad baan idin salaamaya meel kastoo dunida ka joogtaan. waxaan rajeynayaa inaad caafimaad iyo barwaaqo ku sugan tihiin. barakallahu fiikum, ahlan wasahlan, mar labaad soo dhawaada. waxaad nagu caawisaan in subscribe like iyo share badan aad siisaan channelka ood ku dhufataan. barakallahu fiikum. hadday tahay markii koowaad aad timaado ood aragto channelkan, walaal hanala dhaafin, subscribe nagu caawi oo nagu dhiirigeli wanaaga iyo kheyrkaan isku dayayno inaan bulshada usoo bandhigno. caawa mawduucan ka hadli doonaa waxay tahay walaalayaal, maadaama aynu beryahanba wani mawduuca ku saabsan tacliimu salaa, barashada salaada. mawduuc yar oo aan sii faahfaahin doona oo habeenkii horan wax ka taabanay, kaasoo ah ilmaha yar een qaan gaarin salaada ma lagu dili karaa, ma lagu qasbi karaa. run ahaantiisa aynu kasoo hadalnay salaadu waxay faral ku tahay calaa kulli baaliq caaqil, qof kastoo qaan gaadhay oo caqli leh oo muslim ah, lab iyo dhadig ku doono ha noqdo, oo diinta islaamka iyo shareecada islaamku si saxa u gaadhay oo u qaatay oo u fahmay oo awood u leh inuu tukado, qofkaasi waajib ku tahay, oo daahir ka ah min annajaasati walxadath, najaaso iyo jinaabo oo weyse qaba oo uskag iyo nijaaso daahirka ah, qofkaasi waajib ku tahay. haddaba ilmaha yar waxay idhaahdaan fuqahadu markuu 7 jir yahay waa in la amro salaada lagu waaniyo. hadduu 10 jir gaadhay bay idhaahdeen qaarkood fuqahada, ama sida u badan yihiin jumhuurku, waa in lagu dilo, lagu karbaasho. haddaba karbaashitaanka lagu karbaashayay leeyihin ilmaha lagu karbaasho ma aha tarbiyad saxa maaha, waa khalad iyo gaf ka dhacay fuqahada. haba isku raacaan ama ha u bataane, yacni in ilmo lagu dilo salaad wax faa-iidoy keenayso haba yaraatay ma jirto. tarbiyadna ma aha, tarbiyadda ubadkee saxdaana kama mid aha dilmadu in la dilo. adduunkuna imanka aada iyo aad buuga soo horjeeda in carruurta la jirdilo oo lagu dilo khaladay sameeyeen iyo gaf ka dhacay, iyadoo loo adeegsanayo inay tahay tarbiyad. dunida qaar baa isticmaala oo ku dhaqma, laakiin sida saxdaa waxay tahay walaalayaal, tarbiyad sax maaha, taasi waa tarbiyad qaldan. nabiga calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari uu soo saaray, caaisha waxay tidhi rasuulku weligii gacan umuu qaadin gabadh iyo ilmo yar inuu jihaad ku jiro mooyaane, uu jihaatamiyo mooyaane, cid uu gacan u qaaday rasuulku ka argoostay ma jirto. xitaa jihaadka markay tahay dee rasuulku uu diiday in dumarkii carruurta la laayo, la dilo marka dagaalka lagu jiro xaqdirka. taa macnaheed waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam habdhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu ma ahayn in carruurta u dilo. markaasay suurtagal ku tahay in rasuulku haddana uu yidhaahdo ilmo yaroo 10 jir ah lagu karbaasho salaad, isagoo nin dhaqankiisaba ahayn inuu carruur dilo. taasi waxa weeye waa iska hor imaasho, iska hor imanaya rasuulka hadalkiisa iyo ficilkiisa. taasina nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaleeceyn bay ku tahay dhaqankiisa iyo habdhaqankiisi wanaagsanaa. marka xadiiskan ay fuqahadu daliishadaan ay idhaahdaan ha lagu karbaasho ilmaha 10 jirkaa salaada, waa xadiis ka hor imanaya habdhaqankii nabiga wanaagsanaa ee axaadiista saxiixa bukhaari iyo muslim soo saareen ayuu ka hor imanaya. wuxuu kaloo ka hor imanaya qur-aanka kariimka. ilaahi subxaana watacaala qur-aanka kariimka salaada markuu ka hadlayo kuma jirta meel quru ilaahay leeya ha lagu dilo dadka salaada aan tukan ama ha lagu karbaasho carruurta. ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaba mawquut. ilah wuxuu yihi salaadu waa faral, waxaanay faral ku tahay mu'miniinta, waqti go-ana way leedahay. kuma jirta aayadda in laisku dilo. ilaahay wuxuu yihi wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha. bal u fiirsada aayaddan. ilaahay wuxuu yihi nabi maxamedow ehelkaaga, faamilkaaga, qoyskaaga, carruurtaada salaada ku waani oo kula sabir oo ku dhiirigeli. kuma jirto hadday diidaan ku karbaash oo ku garaac. wa aqiimu salaa wa aatu zakaa warkacu maca araakiciin. waa aayad kale. salaada ooga, sakada bixiya, dadka tukada la tukada, muuminiinta. kuma jirto karbaasha qofkii diida oo garaaca. haddii la idhaha qofka ha lagu karbaasho ilmaha yar ha lagu dilo salaada, markuu hadhow qaan gaadho wuxuu u arkayaa un diintan iyo shacaa'irtan islaamkii la gudanaya inay tahay wax lagu soo qasbay oo dhaqana oo lagu qasbay oon isagu ikhtiyaarkiisa ku qaadan.
markaa qasabka waxaa la yidhaha diinta laysku qasbaya wax allaali wax faa'iidey keenaysaa ma jirto. wanaagga iyo quruxda islaamka iyo hadafka iyo yoolka islaamku leeyana ma aha in la badsado dad munaafiqiina oo madharkoogan sare muuqdaa iyo shacairtan ay gudanayaan ay tahay islaam, laakiin gudaha waxay ku qarsanayaan uu yahay gaalnimo iyo islaam naceeb. wax faa'iiday taasi ku jirto ma jirto. islaamkuna munaafiqnimada waanu diiday, waanu la dagaalamay, wax badanna way naga wacyigeliyey. laa ikraha fi ddiin qad tabayana alrushdu min alghay. ilahay wuxuu yihi qur-aanka qasab ma jiro oo diinta laysku qasbaya, xaq iyo baadilkii dadka waan u kala cadaynay, iyagu ha kala doortaan. faman shaa falyuumin waman shaa falyakfur. qofkii doona ha gaalooba, kii doonaana ha islaamo. hadhow ayaa qof kasta wuxuu soo gutay iyo wuxuu soo shaqaystay qiyaamaha ilaahi ugu abaalgudaya. kii naar mutaysta naar baa lageyn, kii wanaag iyo khayr soo shaqaystana janaa lageyn doona. marka in munaafiqiin la urursado haddii la idhaha dadka diinta ha lagu qasbo, salaada ha lagu karbaasho, ha lagu dilo, dee waxa weeye qof aan rabin ayaad qasbaysaa. waxaan uu matalayaana waa jilaa, waa wuxuu jilayo, salaadu jilayo, sakawu jilayo, cibaadadan iyo shacairtan uu sameynaya waa jilitaan. laakiin gudaha iyo qalbiga wuxuu ku haystaa waa munaafiqnimo iyo inaanu aaminsaneyn waxaan oo lagu qasbay. imise caruura lagu soo qasbay qur-aanka barashadooda oo salaada lagu qasbayaba maanta soo tahriibay oo yurub markay yimaadeen u arkayay inay waxaasi ahayn wax waalidkooda ku qasbayeen, oo islaamnimadii xitaa ka fogaaday imanka, diintii ka fogaaday, oo waxay doonaan imanka iska sameeya, oo khamri iyo waxay doonaan sameynaya, oo diinta qaarkoodna ilaahay jiritaankiisi baabay diidayn oo waxay qaateen ilxaad iyo diin la-aan bay qaateen iyo ilaahdiin. marka dhibaatadaasay keentay in caruurta lagu qasbo salaad ama lagu qasbo xifdi qur-aan. dhibaatadaasay keentay ciyaalka iyo dhalinyarta si kale waxaa loo jeclaysiiya diinta. diintu waa naxariis, waa kalgacal, waa weji furfurnaan. ilahay wuxuu uhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma waalmawcidati alxasana. dadka ugu yeedh xikmad iyo waano qurux badan ilaahay ugu yeedh buu yidhi dadka, oo weji furfuran kusoo dhaweyn. kii diidana ilahay wuxuu uhi wajaadilhum bilatii hiya axsan. kii isagu diidana ee kasoo horjeestay dood kuula yimaadana dood qurux badan oo cilmiyeysan oo xikmad ku dhisan ayuu ilaahay leeyahy kula dood, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. markaa wanaagga iyo quruxda islaamka iyo hadafkiisu waxa weeye in dadku ay ku qancaan oo islaamnimada iyagoo ku qancsan ay qaataan. yoolka islaamka waa kaas hadafkiisu. udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma. hadafka islaamka waxa weeye in dadka diinta la gaadhsiiyo oo loogu sheekeeyo oo lagu waaniyo si mawcido ah, waano qurux badan iyo xikmad wanaagsan. intaasaan caawa jeclaystay inaan idila wadaago. kole mawduucu waa mawduuc ballaaran oo intan ka ballaaran minidadan, laakiin maadaama aan youtube soo gelinayo oonan xaadaro caadi ahayn, waxaan jeclaystay inaan aada usoo koobo oo aana 10 mirir ka badan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin meel kastoo dunida ka joogtaan. channelkan cusub hadda 10 mirir ka badan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin meel kastoo dunida ka joogtaan. channelkan cusub hadday noqoto markii koowaad aad aragtay, baaraka allahu fiika.